walaalayaal marka ugu horeysa waxaynu isu dardaarmaynaa cabsida ilaahay. qof walow ina kamida ha ogaado ilaahay waxaad u jirtaa intaad ilaahay ka cabsato. cabsidaadu intay la eg tahay ayaa dhawaanshaha ilaahay aad u dhowdahay iyo gargaarkiisa inuu ku garab qabto, ku hanuuniyo, ku toosiyo kolba waa intaad ka cabsato. haddaad yaraysatana way kugu yaraan, haddaad badsato cabsida ilaahayna way kuu badnaan. camalkaaga oo dhanoo la aqbalo noocuu yahayba wuxuu ku xidhan yahay ilaahay inaad ka cabsato. innamaa yataqabbalu allaahu min almuttaqiin. ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa uun xasri baa la geliyey cidda isaga ka cabsata. intaa bacdigeed khudbaddeennu waxay ku saabsan tahay hal aayad iyo laba xadiis. aayaddu waxay ku jirtaa ama bilowgeeda tahay suuratu lxaj. waa juska 17aad suuradda tirsiga qur-aanka 22aad. aayaadkeedu suuraddu waa 78 aayadood. suuraddan suuratulxaj la yidhaahdo culimmada mufasiriintu waxay ka hadlaan way isku khilaafeen suuraddani ma makay ku soo degtay mise madiina. jalaaliddiin asuyuuti kitaabkiisa alitqaan fii culuumi alqur'aan wuxuu sheegaa suuraddani inay madaniye tahay. laakiin cabdullaahi ibnu cabbaas oo qur-aanka fasiray iyo ardaygiisiiyo mujaahid ibnu jubra labadaasi waxay isku waafaqeen sheekha iyo ardaygiisu suuraddu badhna inay tahay makiya badhna inay tahay madaniya. culimmada tafsiirku qawaaciddiisa ka hadla waxay yidhaahdaan aayad walboo qur-aanka ku bilaabata yaa ayuha nnaas waa makiyay yidhaahdaan, inkastoo hadalka caynkaasa dabata ku jiro, laakiin waa qowl ay culimmada qaarkood sugaan. suuraddan suuratulxaj waxay ka hadlaysaa waxyaabo badan oo aad dunyada iyo aakhiradaba ka warramaya. qiyaamihii bay ka hadlaysaa, awoodda ilaahay bay ka hadlaysaa, bacsiga iyo soo saarkay ka hadlaysaa, khalqiga ilaahay suu abuuray bay suuraddu ka hadlaysaa, xajka ayay suuraddu ka hadlaysaa, jihaadkoo laysu ruqseeyey ayay suuraddu ka hadlaysaa, dadkii asnaamta caabudi jiray iyo aayaxumadooda iyo waxayna caabudayaan wax liita inuu yahay ayay suuraddu ka hadlaysaa. aayaha mujrimiinta iyo halkay ku aayoonayaan ayay suuraddu ka hadlaysaa. quro iyo alqura walmudun deegaamo la rogay ilaah markay diideen oo diintiisay weydaarteen ayay suuraddu ka hadlaysaa ilaa hayri dalik. alle wuxuu yidhi yaa ayuha nnaas dadow waa nidaa'un lijamiici albashar. dadkoo dhan baa loo yeedhaya waryaadhahee dadow ittaquu rabbakum, rabbigiin ka cabsada. cabsida waxaa la yidhaahdaa markay culimmadu ka hadlayaan macaani badan bay tilmaamaan. taacatu llah waijtinaabu maxaarimih, waa ilaahay oo la ateeco wixii uu kuu diidayna aad ka fogaato. waxay kaloo yidhaahdaan allaa yaraaka xaysu nahaak walaa yafqidaka xaysu amarak. waa inaanu ilaahay kugu arag halkii uu kuu diiday, waa inaanu isla markaa kaa waayin halkuu ilaahay kaa doonaya inuu kaa helo. waana asludiin. asludiin waa caynkaa. ilaah marka wuxuu yidhi dadow ilaahay ka cabsada. ina zalzalata saaca, saacadda qiyaame gilgilashadeedu ay gilgilato oo dhulka iyo dadkaba ay la gilgilato. wa idaafatu lmasdar ilaa faacilihi oo maxduufku xadfan yahay. ina zalzalata asaacati alarda wannaas, dadka iyo dhulkaba ay la gilgilato shayun cadiimun. waroy ogaada waa arrin weyne, arrin weyn way ogaada bu alla yidhi subxaana wa tacaala. markaasuu alle wuxuu ka bixiyey arrinkan weyne uu sheegay waxyaaba aynu si wacan ugu sii garanno. qodobaa laynoo tilmaamay. yowma tarawnaha waa maalin aad arki doonto tadhalu iyadoo ilowday oo ay ilaawi doonto kullu murdicatin mid walboo wax nuujinaysa camaa ardacat waxay nuujinaysay. oo watadacu kullu daati xamlin mid kastoo uuru saaxiiba
oo ilma siday ay dhigi doonto wixii ay siday iyo xamligeedii ay dhigi doonto. qodobka saddexaad wa tara annaasa sukaara, waxaad arki doontaa dadkiioo dawaqsan oo sakhraansan oo sida in ay sakhraansan yihiin ba aad mooddaa. wamaa hum bisukaara, laakiin dadku ma sakhraansana mana dawaqsanaa. waxaa dadka jahawareeriyey oo xaaladda heer kaa gaadhsiiyey cadaab allahi shadiid, cadaabka ilaahay ee daran ayaa dadku xamili kari la'yahay oo la dawaqsan yihiin. markaasuu ninku hooyadii, aabbihii, ubadkii, ooridii, saaxiibkii, sokeeyihiiba waa ka cararaya si aan cidii waxba ugu qabsan maalinta qiyaame ayuu uga cararaya. waxaa la mid ah idaa zulzilat alardu zilzaalaha wa akhrajat alardu asqaalaha wa qaala alinsaanu maa laha yowmaidin tuxadisu akhbaaraha. taasaa laga warramaya. innaga marka waxaa layna ka doonayaa mar haddii la yidhi war arrinku waa culus yahay, dhawaaq dheerna layna ku yeedhay, inaynu isdabad qabanno oo qof waliba ilaahay suu la kulmi lahaa u diyaar garoobo. saddex tilmaamood oo aynu leenahay haddaan ilaahay inoo sahlin khatar baynu ku jirnaa. waa tilmaanta koowaadee dembigeennu waa badan yahay. duni aakhiru samana oo waagii baryaaba wacdarihiisa uu leeyahay, oo fitanku baddaa ay yihiin, oo macaasidu badan tahay, oo alla isku taagga iyo alla koodka iyo diinyaridu badan tahay ayaynu joognaa. nolosheennii baa ilaahay ku soo beegay wakhtigan inaannu noolaanno oo waxaan dunida ka soconayaa goobjoog u ahaanno. ilaahay baa cimrigeenna ku soo beegay maanta. ilaahay inuuna sugaano weydiisanaynaa ila almamaat. dembigeennu waa badan yahay, waa dembaabaynaa, waa tilmaanteenna koowaad. tilmaanta labaad aynu leenahay towbadkeenkeennuna waa yaryahay. tilmaanta saddexaad aynu leenahay ducadeenna iyo baryadeennuna waa yar tahay. bal adigu meelgee umma dembigeedii badan yahay, toobadkeenkeeduna yar yahay, ducadeedii iyo baryadaydii ilaahay ay gacmaha u horsanaysana uu yar yahay, aakhiro iyo qiyaamo iyo arrinkan aayaddu ka warramaysana uu sugayo. allaha sahlo. arrintu waa adag tahay. qof kastoo ina ka mid ah haddii gaar loo waraysto war 24 saacadood ee ku soo maraa imise jeer daqiiqado ama saac intee la eg baad ilaahay baridaa oo gacmaha u taagtaa oo alle u hoyataayo u toobad keentaa adigoo dunuubtii aad gashay qiranaya. waa nisba yar marka la fiiriyo. qofku wuxuu u haystaa hadduu salaadaba tukado khalaas inay arrintu tahay. waxay culimmadu isweydiiyaan gilgilashadan arladu gilgilanaysa waa goorma. laba qowl baa ku jira cilmiga tafsiirka mufasiriintu. qole waxay leedahay waxaa loo jeedaa waa qabla albacthi, intaan qubuuraha la yska soo saarin ee suurka marka la afuufo ayay arrintu dhacaysaa. qolana waxay leeyihiin maya caynkaa maahay waa bacda albacthi, marka aakhiro la tago ee qabriga qubuuraha la yska soo saaro ee maxsharka la yimaado markaasaa arrintani dhacaysa. sidaas waxaa rajaxay ibnu jariir shaykhu lmufasiriin. ibnu kasiirna waa ku raacay tafsiirkiisa, ilaa tafsiirkiisa wuxuu u badan yahay naqlinta ibnu jariir buu u badan yahay. 7 xadiis buu keenay haddaan daakiradu i khaldayn. 7 xadiis buu keenaa ibnu kasiir markuu aayaddaa fasirayo. hal xadiis baan ka soo qaadanaa bukhaari iyo muslim. mar haddii hadal yimaado warka kala goyntiisa nusuustaa loo celiyaa. rasuulkaaba inoo qeexay calayhi salaatu wasalaam gilgilashadani goortay dhacayso. xadiidka abi saciid alkhudri ayaa caddaynaya oo rasuulku sala allahu alayh waali wasalam uu yidhi yaquulu allahu tacaala yowma alqiyaamah wa fii riwaayatin yaquulu allahu caza wajalla yowma alqiyaamah. ilaahay wuxuu odhan doonaa maalinka yowmu alqiyaame subxaanahu wa tacaala yaa aadam war yaa aadamow waa nabiyullaahi aadam wa aabbahen aadamow fayaquulu labayka rabbanaa wasacdayk. rabbiyow ku ajiibay hee kuu soo degdegay waykan. yaa aadam fayunaadii bisawtin, cod dheer baa ilaahay ugu dhawaaqayaa aadan uu maqlayo. muxuu odhanayaa alle subxaanah ina allaha ya'muruka an tukhrija min duriyatika bacsan ila annaar. ilaahay wuxuu ku farayaa aadamow
tarankaaga iyo ubadkaagii inaad u saarto bacthan ay almabcuuth intii naarta loo dareerin lahaa ee naarta loo diri lahaa ka soo sooc oo ka soo saar tarankaaga wixii ah ee bannaankan qiyaamo taagan nabiyullaahi aadam warkaasaa la siinaya jawaabuu bixinaya calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam wuxuu odhanaya yaa rabbi wamaa bacthu naar rabbiyow naarta inta loo saaraya muxuu yahay inta naarta loo dareerinayo ee aad saari tidhi waa intee qaala min kulli 1999 kunkii waliba 999 dareeri buu alla odhanaya subxaanahu wa tacaala dadka halkaa tuban kunkii waliba 999 dareeri saxaabadu waa argagaxeen waa baqeen markaasaa rasuulku markuu arkay ayaa wuxuu yidhi ya'juuj wama'juuj wa minkum waaxid dadkaa la dareerinayo ya'juuj wama'juuj bay u badan yihiin waa dadkaynu juuj wama'juujkan idhaahno ayay u badan yihiin idinka mid ba idinka raacaya markaasaa nebigu wuxu yidhi sal allahu alay wasalam wallaahi innii la arjuu an takunuu rubuca ahli aljanna wallaahi innii la arjuu أن تكونوا ثلث أهل الجنة والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة والله وحن رجينا إياه إن أتشنذا أفر مركا لو قيبيو ومدى يدي قيب نقطان صدح دي لو قيبيو آد قيب نقطان لبها دي لو قيبينا آد برد نقطان بان رجينا فقال الناس الله أكبر صحابة دي مرقورة وحي يرادين الله أكبر وافرحين ودي وحبا صوقوا أي مركز النبي صلى الله عليه وسلم وحو يري فحينئذ ومشى نصعده خطبة نصعده فحينئذ تضع الحامل حملها مركاسي تي ستك يا أوركا ودي ديجي دونتا أوركيدي ان وتشيب الوليد كي يرايا دشينا إلا دالي محان كويدا ذو عريسان دونا يوما يجعل الولدان شيبا ومشو قال لك يري وترى الناس سكارى وما هم بسكارى بالنبي صلى الله عليه وسلم حديث كاس وحو سعد قيحيا أهرنتم ماشي كدا عايسو إني تهي محشر كإنو يهي سؤال بقى من كرتو إسلام حاملا يمد وحتقسين يسا ميا آخرة شوكته محمد أمين الشنقيطي كتاب كيس أضواء البيان تفسير كأه لبقى قلبكو كينا يسو كجوابي آية دولة نقو وحوليه هي وحا دعي كرته su-aashaasi hadday timaaddo oo moqof xaamilaaya mid wax jaqsiinaysaa joogta banka qiyaame qubuurta marka laga soo dareero laba jawaabood baa laga bixinayaa buuri inay arrintu tahay islaam walboo xaamila oo sidkeedii isagoo u dhammaaday isku guurtay oo saa ku dhimatay iyadoo aan weli dhalin iyo mid umul raacatayoo umushii ku dhimatay iyadoo naaskii ilmaha u dhigaysa ayaa markay buunka la afuufo bacsiga la soo baxo iyadoo xaamilaa bay xabaasha ka soo boodaysaa argagixii meesha yaallay ayay la dhaqaaqaysaa durtaba ilmihii uurka ku jirayba bannaanka soo baxaya markaasaanay dareemin ilma inuu soo dhaafayba tii naaska jaqsiinaysana sidaasi la mida wayba ilaawaysaa kay naaska u dhigi lahayd wuxuu kaloo leeyahay sheekhu uu weli rajaxayaa amiir shanqiiti kitaabkiisa adwaa'ul bayaanka waxaa suuragal ah buu yidhi arrintu inaanay sidaa ahayne argagaxa weyn ee meesha yaalla ayaa waxaa laga wadaa haddii mid xaamilo ah oo sadkeedii dhammaaday oo dhalmadii u hadhsan tahay ay jiri lahayd ama mid ilma naaska jaqsiinaysa ay jiri lahayd oo dabeetana halkaa ay joogi lahayd sidaasay arrintu u dhici lahayd argagaxa iyo dhibaatada meesha taagan qowlkaasuu rajaxaya qur-aankana way ku timi iyadoo laga wado sidaa markii la caburiyey rasuulka iyo saxaabada oo xaaladdu adkaatay waizaaqat alquluubu quluubtii markay iilatay oo absaartii indhihii ay iisheen waizaaqat alabsaar alla waa tulay subxaana wa tacaala gebagabadii alla markuu soo kaxeeyey subxaana wa tacaala wabalagat alquluubu alxanaajir watadunnuuna billahi dunuuna hunaalika ibtuliya almu'minuun wazulziluu zilzaalan shadiida wuxuu halkaa alla cabiray in halkaa naftu timid oo zilzaal shadiid oo alla cabiraya dhulkuna ma gilgilane dhibaatadii taallay buu ilaahay taa ku cabiraya calaa ayan kaan xadiisku wuxuu leeyahay labada xadiis aynu soo qaadannay qoraxdu way soo dhowaanaysaa
dadka waxay u jirsan doontaa qadra miil waxaa la yidhahdaa afka carabiga laba shay maylka kilomitir iyo barhka ah waa la yidhahdaa miil qoriga yaree lagu indhakuushana miil waa la yidhaahdaa labadaa midkuu yahay wallahu aclam intaasay qoraxdu soo jirsan doontaa dadku markaasay waxay u qaybsami doonaan qof waliba camalkiisii uu dunida ka shaqayn jiray hadduu wacnaa iyo hadduu u xumaa ayaa loo miisaami doonaa dhididka jidhkiisa ka soo baxaya xadiiska hore aynu sheegnay wuxuu tilmaamay dibadda dhididka u soo baxaya mid baa dhididku labada kuraamood ama canqawga u joogsan doonaa mid baa dhididki ka soo baxay jidhkiisu labada low tegi doonaa mid buu guntiga halka laga xidho tegi doonaa mid buu xakamayn doonaayo afka sidaa u geli doonaa dhididkiisu xadiiska abu hurayrana wuxuu tilmaamayaa dhididka ka soo baxaya inta uu dhulka mukhuurayo markaasaa wuxuu leeyahy rasulku sal alla alay wasalam 70 baac ayaa qofkaa dembigiisu kolba intuu la eg yahay dhulka uu mukhuuraya baac waxaa la yidhaahdaa masaafatu maa bayna alyadayn labada gacmo markaa sidaa u kala bixiso inta u dhaxaysaa baac la yidhaahdaa 70 baac baa dhididku dhulka mukhuuri doonaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalintaa adag qur-aanka waxaa ku timi cadceeddan waa soo dhowaatay rasuulku leeyahay waxaa qur-aanka ku yimi iyadoo la sheegay cadceeddiiba in la duubayo iyada iyo ilayskeediiba la duubayo ida shamsu kuwirat halkanna xadiisku wuxuu leeyahay cadceeddu waa soo dhowaanaysaa waxaa laysu waafajinayaa bay yidhaahdeen culimmadu marka hore cadceedda soo dhowaanshaheedaa horreeya marka dhididkaasi baxo oo dhulkana mukhuuro dibaddana qof walba kolba dembigiisu intuu la ekaa uu u joogsado ayaa ilaahay cadceeddii amar bixinaya dadkiioo daawanaya in badanoo qorraxda caabudi jirtay ay taagan yihiin ayaa ilaahay duubayaa nuurkeedii iyadaba dabeetana ilaahay naartuu ku ridaya ihaanatan licaabidiiha iyadoo la dullaynayo kuwii caabudi jiray innakum wamaa tacbuduuna min duuni illaah xasabu jahannama antum laha waariduun waxaynu walaalayaal marka isu dardaarmaynaa maalinka adag ayaa ina ka horeeya maalinka adag ayaa ina ka horeeya rasuulku sala allahu calayhi wasalam habeenkii markuu jiifsanayo adkaarta uu akhrinayo waxaa ka mid ahay ma uu seexan jirin ilaa uu yidhaahdo 3 goor ilaa uu yidhaahdo allaahumma qinnii cadaabak yowma tabcathu cibaadak ilaahayow cadaabkaaga iga ilaali oo iga kori addoommahaaga maalinkaad soo saari doonto maalinka nebi maxamed baa saa uga walwalaya qof walbo ina ka mid ah dunya aakhira saman baynu joognaa aakhiraa war jiraa qof walowba dib isugu noqo oo camalkaagii iyo ilaah waxaad la hortegi lahayd iyo war wanaagsan oo dunida aad kaga tegi lahayd iyo si wanaagsan oo aad u noolaan lahayd qof walowba ku tasho